السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن دمان داودياش qiimaha iyo sharafta loo dilahantiin ba ku soo dhawaada barnaamijkeena maalinlaha ah ee ku saabsanaa ciyaaraha. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay YouTube-keena subscribe saar, share garay oo asxaabtaada la wadaag si dad badan noogu soo biiraan. Mahadsanid. Real Sociedad ayaa ogolaatay inay Lucas Sanchez kala soo wareegto Salzburg. Sanchez ayaa haatan u safri doona Spain maanta isaga iyo wakiiladiisa si ay baaritaano caafimaad u mariyaan kadibna uu u saxiixo dokumentariyada buuxa. hal saxiix oo kale ayaa u saxiixay Real Sociedad iyadoo la filayo inay Michael Merino ka iibiyaan Arsenal. Sidoo kale Fulham ayaa dalab cusub ka gudbisay Scott McTominay oo ka badan 20 milyan oo geni waxaana la filayaa in la soo diido. Man United waxay u furan tahay inay ku iibiso lacag ku dhow 30 milyan oo geni. Tani waa shardi ah in McTominay uu ka tago Manchester United. Sidoo kale Dani Olmo ayaa heshiis shakhsi ah la gaaray Barcelona wuxuuna qalinka ku duugay ilaa 2030. Barcelona ayaa sidoo kale soo jeedin cusub u dirtay RB Leipzig dalab rasmi ah oo laga gudbiyay gooldhaliyaha ugu sareeya Euro 2024. Olmo wuxuu ogolaaday inuu heshiis 6 sano ah u saxiixo Barcelona si xoogan ayuuna u doonayaa inuu u dhaqaaqo Barca wuxuuna sugayaa labada kooxood inay ku heshiiyaan shuruudo. Go'aanka ugu dambeeya RB Leipzig ayaa laga sugayaa. dhanka kale Manchester United ayaa xaqiijisay in Leny Yoro uu garoomada ka maqnaan doono muddo. Sidoo kale Rasmus Hojlund dhaawac murqaha ah ayaa soo gaaray waxaana uu si rasmi ah uga bogan doonaa dhibaatadaasi waqtiyada soo socdo. Dhinaca kale Wesley Fofana ayaa yiri waxaan qoys ka taaganahay inaan muujiyo sababta ay Chelsea ii soo iibsatay sababtoo ah waxaan jeclahay kooxdeyda. Markii aan ku biiray Chelsea waxaan xaqiijiyay riyadeyda. Waxaan rabaa inaan bandhig sameeyo waan gaajoonayaa. waxaan doonayaa inaan koob ku guuleysto hubaashi waxaan diyaar u ahay inaan si adag ugu shaqeeyo kooxda. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay YouTube-keena subscribe saar, share garay oo asxaabtaada la wadaag. Mahadsanid.